وحتى هاي muwaadin la dooran karo أما بمد وحدورا كرا codkiisuna yahay muhiime muwaadin waxa tahay muwaadin la dooran karo amaba mid wax dooran kara codkiisuna yahay muhiim muwaadin haddaycin xaqaage maanta bayse soo diiwaangeli 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 markay tahay doorashada mindida daabkeeda hayso markay tahay doorashada mindida daabkeeda hayso si aan meel sare u gaadhno masuul loo xulan karayno mid weeyaan kula gudboone mid weeyaan kula gudboon muwaadin haddaycin xaqaage maanta bayse soo diiwaangeli muwaadin haddaycin xaqaage maanta bayse soo diiwaangeli markay tahay doorashada mindida daabkeeda hayso markay tahay doorashada mindida daabkeeda hayso maanta ay tahay bisha 29 November 2020 waxaynu joognaa magaalada Boorama oo maanta guud ahaan gobolka Awdal iyo 3 degmo oo kamid ah gobolka Maroodijeex ay ka bilaabatay wareegii koobaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo imika aynu ku sugannahay xarunta ama goob kamid ah goobaha magaalada Boorama oo la yiraahdo hanuuninta dhexe halkan waxa jooga axsaabtii qaranka iyo wasiiradii xukuumadda iyo howlwadeennadii kale commissionka iyo degmadaba waxaynu u joognaa in maanta aynu dadka tusno in diiwaangelintii si wanaagsan oo habsami leh uga socoto goobaha kala duwan gobolka gaar ahaan magaalada Boorama waxaan doonayaa in aan fursadda siiyo axsaabta kala duwan si ay bulshada ugu sheegaan halkay wax marayaan iyo habsami socodka hawshii maanta inoo bilaabatay muwaadin haddaycin xaqaage maanta bayse soo diiwaangeli muwaadin haddaycin xaqaage maanta bayse soo diiwaangeli isdiiwaangeli maanta bayse soo diiwaangeli waa horta maanta waa maalin weyn oo maalin farxadeed baa weeye waxaan u dareeraynaa diiwaangelintii dib loo furiyey ayaan maanta loo dareerayaa arrintan inay meesha ay qabsoonto muddo dheer bay soo qaadatay ilaa 3 sano ay jiitamiyey alxamdulilah rabbil caalamiin waa qadar ilaahay waqtigii ilaahay qoray bay dhacday waxa weeye arrintan waa arrin danteena ah waa arrin gobolka ah danteeda ah waxa weeye dadka inoo soo dooran lahaa biidnillaahi kariim ayaa isdiiwaangelinaya si loo helo doorasho xalaal ah oon lagu shuban oon lagu noqnoqon habka la sameeyey waa hab casri ah afrika innagaa uga horreynay taas waxay kutusay inuu ka horreyno waddamo badan oo afrika ah dimuqraadiyadeena aynu ku faanano maantana geeska afrika waxay ka noqotay meel ka calaamadsan bay ka noqotay waxaan leenahay commission baa inoo jooga halkan commissionkaasi wuxuu ka kooban yahay 7 xubnood reer Somaliland oo marka xitaa la eego si fiican isku balance garaysan ayuu ka kooban yahay haddana waxa weheliya 6 xubnood oo ka socda xusbiyada oo min 2 qof ah wakiil ah oo task force la yiraahdo
waxa weeye inagu wixii aynu iska garan weyno aynu soluugno inagoo inoo furan tahay inaynu ciddii xilkaas saaran yahay u tagno oon la hadalno oon su'aalo weydiino ayaynu ku ordinaa miidiyahii aynu xorta ka dhignay waynu abuse garayna waa ceebaynay waxa weeye kii wax yar qoonsaaba halkii uu ka weydiin lahaa qofkii xilkaas saaran yahay ayuu u yeedhanayaa miidiyaha leenahay commissionku gobolna kuma aha liddi xusbina liddi kuma aha ummadda oo dhan baa imanka ilaashanaysa kitaab ilaahayna gacantay saareen haddaynu institutionka aynu aamini weyno oynu qofka qabiilkiisa maskaxda naga dhaco oon markiiba idhaaho cadaalad darro aad tirsataa meel gaadhi mayno waxaan leenahay wixii saluuga ee ku aragtaan habka u socda diiwaangelintu intaanayd miidiya qabsan waxaa fiican inaydun soo gaarsiisaan broseska u marto xusbiga gobolka degmada xarunta task force-ka ayay la hadlaysaa wakiilada hadday qancin waayana markaa waxaa loo yeedhaa madaxda xusbiga ayaa markaa noogu yeedha waxay nagu waajibay inaan diiwaangelinta gacanta siina wixii xanaf keenaya aan ka dayna aad kaba ma fiicna ummadda waxa kala diraya inaynu miidiya geyno ma fiicna waxa wanaagsan in dadku wax wanaagsan la faraa wanaagsan xumaanta in la farta lagu fiiqo waxaan jiray wax jira ma fiicna marka waxaan leenahay isdiiwaangeliya ismuujiya insha allahu tacaala doorashan waxaan soo saari doonaa dad wanaagsan waxaa mahadle dadaalka badan ee ka muuqday maalmahan oo ku dhan guddiga komishanka howlaha ay galeen shalay camuud markaan joognay nimankaasi afartii habeennimana noo sheegay inay kala dirayeen dadkii oo meelaha fogfog ay u dirayeen waa dadaal badan bay muujiyeen waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay goobihii sidii loogu talagalay in meel kasta ay u gaadhsiiyeen aad baad u mahadsantihiin waxaan ku talin lahaa reer awdal shalayna waa hadlay markay arrintani dhammaato dadaalku way gaabiyaan marka hore arrintu markay dhammaato hadhowna cabashadaa badanta iminkay idla gudboon tahay dimuqraadiyadda waa gacantiinna iyo kaarhkiinna ku dadaala iminka maanta waa maalin weyn waa maalin aynu muddo dheer sugaynay oo aynu ka dhur sugaynay muddo dheer inaynu maalintan soo gaadhno oo ah in maanta aynu bilownay somaliland ka bilaabantay dubufurista diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah fursad qaali ah oo wakti kooban jiraysa 4 maalmood bay soconaysaa dad gaarana waa loogu talagalay 4 cisho oo ah dadkii qaan gaadhay dhalinyarada ahaa iyo kuwii horan isu diiwaangelin iyo kuwa wasiir saashin sheegayey ee kaarhkoodu gubtay oo qof cusuba laftigiisu marka waxaan ku talinaynaa in waktiga la dhowro marka shacbiga waxaan leeyahay si wanaagsan la isu diiwaangeliyo diiwaangelintu waxaa lagu qiimayn doonaa degmo kasta iyo gobol kasta dadka iska diiwaangeliyey hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahayba marka aad iyo aad waana tartan baa ku jira oo tartankii degmooyinka iyo gobolladu uu ku jira marka waxaan qabaa in dadaal badan aynu muujinno waktigana ka faa'iidaysanno markay tahay kulaha deegaanka mudana garashiyo aqoon leh waxqabad iyo maamul fiican cadaaladda laguma jirto ayaa madan loo xushaaye madan loo xushaaye waad hadaycin xaqaage maantaba isa soo diiwaangali waad
dayicin xaqaage maantaba isa soo diiwaangali maantaba isa soo diiwaangali maantaba isa soo diiwaangali